بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. su-aasha odhanaysa maxay noqonaysaa in khudbadda jumcaha lagu jeediyo bikayri alcarabiya, carabi waxaan ahayn, iyo maase u fiican ummadda soomaaliyeed ma in carabi loogu jeediyo mise in luqadooda loogu jeediyo. waxaynu tilmaamaynaa ugu horeyn khudbadda jumcadu waa cibaado muhim ah oo la inoo jideeyey maalinta jumcada salaadeeda ka hor in lala yimaado. mar hadday sidaa tahay, waxa ugu habboon ugu horeyn in la ilaaliyo sida ay ka fiican tahay. waxaana muhima in la fahmo khilaafka mas'alada ku jira waa ijtihaadi, oo khilaaf la leeyahay ilow dhinacana la jarayaa ma aha. culimada cid banaysay in marka bikayri luqa alcarabiya, carabi waxaan ahayn lagu akhriyi karo, iyo cid tidhi ma banaanaba, waa masale ijtihaad saa'iq u ah oo in la ysku khilaafaa aanay wax dhibahi ku jirin. waxaa kaloo muhim ah in la fahmo asalku khudbadda jumcada ee sunnada ahi waa in laga dhigo alluqa alcarabiya. luqa alcarabiya inay ku gudayso sida ugu fiicanna ay tahay asal ahaan, la iskuma dafirayo ama la iskuma khilaafayo. laakiin khilaafku wuxuu ka taagan yahay ma gudaysaa wax aan carabi ahayn. laakiin carabidu inay gudayso, luqadii qur'aankana tahay, asalkana iyadu ay tahay, ayna marka koobaad fiican tahay, ishkaal kuma sugna. ahlulcilmigana khilaafkoodu laba weji buu ku dhisan yahay. mathalan, ma waxaa la rajaxayaa in la yidhaahdo khudbaddu jaanibka tacabudiga iyo cibaadanimada ayaa xoog badan oo ka xoog badan jaanibka macquululmacna in ujeedadeeda la fahmayo, ma waxa ka xoog badan dhinaca tacabudiga mise dhinaca macquululmacna baa xoog badan? ciddii ahlulcilmiga u aragtay inuu yahay dikri ay waajib tahay in lala yimaado qabla salaa, waxay yidhaahdeen dikriga ay waajibka tahay in lala yimaado qabla salaa annagoo rajaxayna jaanibka tacabudiga waa shay cibaado ah, sidiisa in lagula yimaado uu nebi maxamed ula yimi sala allahu calayh wasalam ayay tahay, oo ah alluqa alcarabiya, sida allahu akbar, sida takbiirat lixraamkaba luqada carbeed loogula imanayo, oo qofku isagoo awoodi waayo mooyaane aanu tarjamo ugu leexan karin, ayaanu leenahay dikrigan faradka ana ha loola yimaado biluqa alcarabiya. ahlulcilmiga cidda u aragtay nebigu sala allahu calayh wasalam in maadaama loo diray ummadda oo dhan, halkaa uu ka khudbadaynayena ay ahayd waxa weeye reer tolkii iyo ciddii luqada rasuulka sala allahu calayh wasalam sideeda u fahmaysay uu u khudbadaynayey, luqada uu yaqaanina nebigu sala allahu calayh wasalam ay tan carabiyadaa ahayd, ee ummadaha kale ee kala wada luqaadka duwan leh ee nebiga loo soo diray sala allahu calayhi wasalam, marka laga naa'ib yahay nebigii sala allahu calayh wasalam ee la gaadhsiinayo ummadda xaqa, ay tahay in waxa weeyaan lagu gaadhsiiyo luqaday asal ahaan u leeyihiin. waayo ambiyada kale dee qoomkoodunbaa loo diri jiray, waxaana lala diri jiray qoomkoodu luqada ay ku hadlayaan. wamaa arsalnaa min rasuulin ila bilisaani qowmihi liyubayina lahum.
qoladoodu luqada ay ku hadlayaan baa lala diri jiray isaga oo ku hadlaya saasaanu xujada ugu oogi jiray nebiguna sala allahu calayhi wasalam ummadoo dhan baa loo soo diray jin iyo insiba marka reer tolkii uu gaadhsiinayey iyo luqadii isagu uu markaa garanayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku gudbinayey waa sida ugu fiican oo saasay arrinteedu markaa ku ahayd akmalka iyo sida ugu dhammayska tiran ama qofka kale ee ummad kale gaadhsiinaya ee raba nebiga sala allahu calayhi wasalam risaaladiisii inuu xambaaro ee ummadaha kale wada luqada duwan u gudbinaya bilisaani alqowm waa inuu ugu gudbiyaa qoladan carabka ay ku hadlayaan iyo luqadooda qolada sidaa ka eegta xagga macnaha ka eegtayna waxay yidhaahdeen iyadoo carabidu ay fiican tahay aan cidna diidayn axsanka iyo akmalku waxa uu yahay in loogu gudbiyo cid kastaa luqaday fahmayso si xujada si cad loogu oogo qoladaasina dhinacaasi ka fiirisa bacdu ahlilcilmi waxa weeye way kulmiyeen labada arrimoodba oo labada maslaxaba way kulmiyeen waxaana yidhahdeen adiladuna si badan bay ugu gargaaraysaa oo waxay tilmaameen maadaama oo qoladan le luqada carabeed baanu shardinaynaa intay u shardinayaan ay tahay arkaanta oo qura oo ishtiraadu luqa alcarabiya uu yahay maqsuurun bilarkaan mid arkaantoo qura ku kooban waxa weeye dee luqadii kalena ha lagu daro oo ahlulcilmiguna fii kutubihim in badan bay ku ishaaraan salafan wa khalafan oo ay yidhaahdaan qofku ta kalena waa ku darsan karaado waa sii raacin karaa oo inta quree laga hadlayaa in laleeyahay waxaa loo shardinayaa luqa alcarabiya waa arkaantoo qura ee markaad arkaanta dhammayso waxa weeye luqadaa doontaabaad ku hadli kartaa biitifaaqi ahlilcilmina markaa cidna isku diidi maysa inay ansaxayso mar haddii arkaantii la gutay oo khudbadda arkaanteedii qolaba inay ka dhigtaba masalan arkaantii la gutay shaaficiyada oo kale arkaanta 5 bay ka dhigaan haddii la kala saarana 8 bay ka dhigaan oo masalan in ilaahay la mahadiyo nabiga lagu saliyo sallallahu alayhi wasallam cabsida ilaahay ran laysu dardaarmo aayad qur'aan oo macnaheeda waxa weeye macna kaamil oo la fahmayo muujinaysa marka lagu akhriyo oo lala yimaado mu'miniintana tadambe ama khudbada dambe loo duceeyo arkaanta intaasa gebigeedaba khudbadeedu waxay ku gudaysaa oo aan laba isku qabanayn ahlul cilmiga wax 4-5 sadar aan ka badnay sida awadeed ba imaam az-Zuhayli oo a'immada madhabka Shaafiiciyada ee casrigan waaweyn kamid ah isagoo khudbada ishaaraya wuxuu yiri labada khudbadood ba sadaro kooban intuu ku soo ururiyay biitifaaqi ahlul cilmi taasoo kale way ansaxaysaa waxa uu yiri haduu shakhsigu yiraahdo مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم عن معصيتي ومخالفتي قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم يجلس كتبنا أو فريسته ويقوم مسنا استاغو فيقول يراهدو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر يغفر الله لنا ولكم لكان آتيا بالخطبة على الوجه الأكمل باتفاق العلماء قفك انتا قرى هذا dhammaan ahlul cilmigu siday isla ogol yihiin aan laba isku khilaafsanayn khudbadii sidoo ugu wacnay duulayeen ahlul cilmi badanna waa ishaareen biluqa maxalliya in lagu hadli karo marka waxa weeye khudbada ama awalka horeba ka dhig ama khudbada dabada ama dhexdaba ugu geli midna dhib male waayo nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo khudbka akhrinaya ayuu cid kale la hadli jiray fi bacd al-ahyaan mararka qaarkoodna isaga la hadli jiray mararka qaarkood intuu khudbadaba ka soo digo sameyn jiray inuu cid waxa weeyaan wax baro sida xadiiska muslimka oo kale iyo
marka diintiisa qofku wuxuu ka jaahil yahay uu kordhin jiray. marka khudbadda inta loo shardinayo shuruudda 10ka dhaafaysa waa arkaanta. haddii arkaanta lala yimaado, haddii xitaa qofka ciddii tahaaro u shardinaysay weysadu ka jabto, intan dambuu la imanaya waxba ma yeelayso. hadduu luqa alcarabiya waxaan markaa ahayn kula yimaado, cid odhanaysa waxba yeelaysaa ma jirto, ama waxba ka bushinaysaa. marka waxaa ila fiican inaan masaladaasi khilaaf gey karin, ee shakhsigu intuu arkaanta luqa alcarabiya kula yimaado khuruujan min alkhilaaf, inuu luqa almaxaliyana uu markaa la yimaado oo ugu dhex daro khudbadaba ka dambaysiyo ama hadhowba ha la yimaado, wax dhiba aanay keenayn. mas'aladuna ay tahay mas'ale ijtihaadu saa'iqa. baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayr waaxsana allah ilaykum.